بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دواد أرداجين. مادام إنه كنالك كوا داجنو حجمه مو أحد السدة شخصيات ده حوجنت يحول شذا حديد ده يدما وحيابها كوعين يقفك مقالهان يمسكها با وحين مالمها نو بدنان دونا برنامج هذا كصافصن وحبرشة أخرس يجودهان باقونتا موضوعنا وحيدين سو جود بنيسة أنا جواها ينشامع نوح أيان دلت كسر دواده أخرس كوا عادة وناكسن أودنا ولينا تبرتو وحبدنا وانا دولي جات تشابين iyadoo ay taas jirto dadka badankooda uma fududa isku sinaxiisa ugu samayso mawduuceenan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa habab fudud oo ka caawin kara inaad akhriska jeclaato kana dhigato caado maalinle ah talaabooyinkan waxa ku talinaya mulkiilaha shirkadda Microsoft ahna ninka labaad ama saddexaad ee dunida ugu qanisan waqtigan Bill Gates aynu bilowno talaabada koowaad ee Bill Gates akhriska ku bilow waxa jeceshahay buugaagta iyo mawduucyada la akhriyaa way kala duwan yihiin sida ay kala duwan yihiin dooqyada dadku taasi waxay keenaysaa in qofku xiiseeyo mawduucyo gaar ah kuwa kalena ku caajiso haddaba marka aad tahay qof aan akhriska aad u jeclayn isku day inaad akhridid mawduucyada aad markii hore xiiseyn jirtay waliba in kooban marka hore si aanad uga caajisin marka aad akhriska ku bilowdid waxyaabaha aad jeceshahay waxaad is arkaysaa muddo kadib adigoo akhriyay xitaa waxyaabaha aanad jeclayn talaabada labaad wax akhri adigoo qalin sita ku dadaal markastoo aad buug akhrinayso inaad haysato qalin si aad u qorato wax kasta oo aad ka hesho ama waxyaabaha aad qoraaga kaga soo horjeedo fikirkiisa ama xogaha uu ku soo kordhiyay xogtii aad hore u haysay Bill Gates wuxuu leeyahay markastoo aan qoraaga fikrad ku diido waxaan ku diiwaangeliyaa buugayga gaarka ah taasina waxay iga caawinaysaa inaan dareemo inaan qoraagii la doodayo iyo inaan xasuusto afkaartii aan buugga ku arkay talaabada saddexaad hal saac maalin kasta wax akhri si uu akhriskaaga u noqdo caadooyinkaaga maalinlaha ah waa inaad saacad ka mid ah maalinkaaga u qoondeysaa wax akhriska waa inaad wax ku akhridaa meel degan si aad u fahanto xogta aad akhrinayso Bill Gates wuxuu sheegay si kasta oo uu mashquul u yahay inuu saacad akhriyo buugu jecel yahay maalinkii taasina ay ka caawiso inuu noqdo qof dhinacyo badan xogogaalka ah wuxuuna xusay inuu saacado kooban ku bartay tijaabooyin qoraaga ku qaadatay sanado hadalkaas Bill Gates wuxuu xoojinayaa orax carbeed oo tidhaahda akhrisku waa habka ugu wanaagsan hababka danaysiga tijaabo sanado qaadatay ayaad qolkaaga dhexdiisa ku dheefsanaysaa talaabooyinka saddexda ah waa kuwo barbilow u noqon kara saf waxaanaad ka soo tagaysaa qof aan jeclayn akhriska adigoo noqonaya qof balwadiisu tahay akhriska waqtigan aynu nool nahay waxa lagu tilmaamaa inuu yahay waqtigii xogta information era dhammaan wax kasta oo aan dugsiga ku baran waxaad ka helaysaa buug laga qoray waxaana si fudud khabiir ugu noqonaysaa waxyaabaha aanad khibrad hore ka haysan marka aad xulato buugga kugu habboon waxaad isbedel togan ku samayn kartaa nolosha waxaanad bedeli kartaa jihadii ay markii hore u socotay aqoontaadu mawduuceennu waxaynu ku soo gabagabeynaynaa oraa hore oo khusayso qodobkan oo odhanaysa maktabadda waxaad ka helaysaa dhammaan wixii nolosha ku dhaafay haddaba su'aashaydu waxa weeye wax akhriska sidee isku tihiin nila wadaag waa noo muhiim fikirkaagu sida adigu muhiim u tahay aad baa u mahadsantiin